wuxuu ka warramay sheekh la yiraahdo Yaasir Dawsari kamid ah culimada xaramka tujisa wuxuu anoo ku dul akhriyay quraanka sheekh min mashaayixina nin kamid ah ahlul cilmiga ayaa waxa noo soo galay buuri masjidkii arday waxa noo soo galay buuri wiil dhalinyaro ah oo wajigiisu aad u bedelan yahay saameyn badan ayaa ka muuqata wajigiisa iyo warwar walbahaar badan qof kaanama yani midna noloshii ka qustay oo kale markaasuu sheekh intuu la soo fariistay wuxuu anoo quraanka akhriyay ayuu sheekh igu akhri quraan markaasuu sheekhu waa kugu akhriyay intuu ardaygu dhameynayo sheekh Yaasir inta uu dhameynayo halka ay fadhiiso isug iska akhriso adna inta quraanka sheekh Yaasir baa ka warramayo ardaygu marka quraanka akhriyay kadib wuxuu yiri inanka dhalinyarada uu soo kacay safka hore iska soo fadhiistay quraanki ayuu bilaabay dhowr safxadood ka saaray dhowr safxadood buu akhriyay 2 bog 3 bog 4 bog 5 bog ana inta quraanki ayaan ku dul akhriyay sheekh marka dhameeyay buu sheekhu igu orado inankii laha quraan igu akhri igu yad wuxuu inankii 3 bog uu akhriyay isagoo wajigiisa isbedelay oo wajigii hadda salaamayay ee hadda sheekhu kula sheekh quraan igu akhri waxaan doonay quraan inaad igu akhridee wajigiisu aanu kiba ahayn ayaan arkay buu dad markaas aan ku sheekha ku yiri kaale uu soo kacay sheekhigu uu yimid markaas sheekhu ku sheekh ana isku filan sheekh jazakallahu khair ana akhrisanay quraanka maxaa dhacay 3 bog uu akhriyay saameyn bay ku keenay qalbigiisa warwarkii iyo walbahaarkii dhibtii haysatay oo dhan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dulqaad sababtu maxay sababtu ma garanaysaa waayo markii hore qalbiga bukay qalbiguna haduu bukoodo kaarjabin baa wax ka taraysa ma aha caafimaad kala wax ka taraya ma aha dhakhtar kasto oo dhakhaatiirta dunida kamid ku wareegtaa ma ku siin karaan caafimaadka qalbiga waxa hagaajinaya waa maxay xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba qalbigu ku daga marka madaxu ku xanuuno dikarjabin baan isticmaalnaa Soomaa marka qofku gaajoodo waxbuu cunaa uu dhargaa Soomaa laakiin qalbigu markuu bukoodo qalbigu waxa nusta ka waran dhakhtar aad u tagayso oo ku anfacaya ma jiro dhakhaatiirta dunida intii la yaqaanay way dhaafta waxa marka laga doonaya waxa laga doonaya qalbigu inuu Ilaahay ku xirno xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo wirdiga u bato soo fariiso masjidka soo weysayso tahaaro qaado 2 ragcadood tuko masjidka gal akhri 10 bog akhri 20 bog akhri wallahi wad isbedelaysa qalbigaagu waa isbedelaya quraanka aynu sheegnay ee buuraha bedelaya ee dhagxanta soo ridaya ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay dadka dhintay inuu soo nooleen lahaa hadii wax weeyaan aan oran lahayn soo nooleen quraanka noocaas wallahi walaalayaal qalbigeena yani qalbigeenu wax jilicsan weeyaan wax kooban weeyaan wax sahlan quraanka marka la akhriyo ee qalbigii uu ku dago quraankaas qalbigu waa saameynaya ta'thir iyo saameyn aad u weyn ayaana uu kaga tagay